baryahan dadka Soomaaliyeed dhagooda waxa ku soo dhacayay arinta Soomaaliya iyo Ethiopia ka dhex taagan. Arintaas arin nasiib darro ah waaye, kuma faraxsanin inay dhacdana sax ma ahayn. nasiib darro dawladda Ethiopia garaawshiyo waa laga waayay. dadka Soomaaliyeed waa og yihiin, caalamkuna waa og yahay. 1960kii laga soo bilaabo ilaa iyo 1990kii Ethiopia anaga dhul ku sheeganaynay iyo dad Soomaaliyeed anaga maqanaan lahayn. dalka Soomaaliya xuduudihiisa marka laga baxo dad Soomaaliyeed meesha ugu badan ay ku nool yihiin waa Ethiopia. dadkaasaan xuquuqdooda iyo danahooda daba taagnayn muddadaas. maanta waa nasiib darro Ethiopia inay iska dhaadhiciso kuwaas inay meel inta dhigatay ay dalkii xorta ahaayo shalay ay u soo noqotay tira cadaan ka goosanaya. maanta horta dadka Soomaaliyeed waxa inay fahmaan aan rabo waa intaas. jamhuuriyaddii Soomaaliya ee 1960kii dhalatay ayay Ethiopia maanta daba joogtaa ay leedahay cadaan ka goosanaya. horeyna uma ayan dhicin, maantana ma dhacayso. Soomaaliyoon dawlad lahayn, Soomaaliyoon xadaarad iyo ilbaxa maanta ay leedahay aan lahayn, qabaa'il degan ah ayaa diiday Ethiopia inay dhulkana qaadato, baddan xoog ku gaarto. maanta baddan xoog ku gaaraa waa dariim, waa riyo aan rumoobeyn. waana lagu soo tijaabiyey baddeenna, horaana loogu soo tijaabiyey, naloogamana guulaysan, tanna nalooga guulaysan maayo. Soomaaliya waa dal xeeb dheer leh oo ku yaalla qaaradda Afrika. dalalka adduunyada siday u macaamilaan inaan u macaamilnaan diyaar u nahay. nalama khasbi karo, dhulkeenna nalagama khasban karo, waxa laga rabana nalagama khasban karo haddaanan annaga raalli ka ahayn, oo sida aan annaga u rabno aanan loo samaynayn, oo nidaam iyo sharci iyo xeer la yaqaano caalami ah dhexdiisa aan lagu shaqaynayn. Ethiopia shalay qaanuunka international lawga ee caalamka jiro ayay dhinac martay. maanta markii hal wada hadlo la yirina weli way diidan tahay qaanuunka caalamiga inay ku soo noqoto oo qawaaniinta caalamiga dhexdeeda aan ku wada xaajoonno. Soomaaliya waxaa difaacayay muddadii ay tabarta dareed qawaaniinta caalamiga ah difaacday. shalay Ethiopia way diidaneed, gobnimada dalka Soomaaliya ay dafirtay. maanta la joogana weli ma aqoonsana, berri waa maalin kale. maanta la joogaay weli ma aqoonsana. waxaan wada hadalkii Ankara aan uga soo kala tagnay waa intaas, inay diiday ilaa hadda ay diidan tahay Soomaaliya dal xor ah oo daris la ah inuu yahay ay diidan tahay. taas ilaa ay ka aqoonsanayso badna kama hadli karno, maxaan ku iraahdaa ganacsina kama hadli karno, wax kaloon ka hadli karno garanaynaa annaga ma jirto. qofkii garanayo nagu qanci karana uu noo imaan karaa, uu noo sheegi karaa. dadka Soomaaliyeed nasiib darro waxa ah dadka Soomaaliyeed qaarkood qadiyadaasi inay walax annaga aan siyaasad ka dhex raadinayno siyaasadeynayna inay tahay maya ma aha. jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya annaga naloo doortay, mas'uulna ka ah dawladdeeda. dhowr maraan sheegay, shalayna kamaanan ogolaanin, maantana kuwa kaloo yimid ka ogolaamayno, kuwa biri imaan doonaan, kuwa naga dambeeyana ma ogolaan doonaan. siyaasad nagama aha, daris nacayb nagama aha, xuquuqdeennoon ilaashanayna waay. shaatigeenna inta nalagu qabsaday yaan waxaan ogolaanay inaan ka xaajoonno, meel kasii dambeysoo loo noqdo ma qabno. wada xaajoodkaas waxaan ku rabnaa wax aan leenahay in laga leexdo bas. wax kale iyo dhib kale iyo dood kale iyo dacwo kale qabno mala. Soomaaliya ogaada, colaad ma qabno, diris xumayn ma qabno, dhib kale ma qabno. waxaasi si loo waxeeyo intaasoo jeer ayaa dawladda Ethiopia ay meelo badan weliba naga xananteynaysaa inaan xanaaqno, oon hindisno, oon qaylino, oon caaytano, oon ayadoo raadinayso. maanaan samayn. hal hadafaan leenahay. halka hadafaan leenahay waxaa waaye gobonnimada, madax banaanida, midnimada dal iyo dad ee Soomaaliya inaan la soo faragelinin. taasaan ku taaganahay. wada hadaladii waxaan rabaa inaan amaano walaalaheen Turkiga, way ka shaqeeyeen, way dadaaleen. annaga xaggeena kama niyad jabin.
soo haray soomaaliya dowladaha hebel iyo waxbay saaxiib la tahay iyo waxbay la heshiisay waxbay la dhacday waxa ayaantan dowladda Ethiopia intaas Soomaaliya waa xor ciday doontay la heshiinay maslaxadeeda ay ka dhex aragto cid kasta oo danta Soomaaliyeed mutual danahayna fulinayso danahoodan fulinayna ciddii aan danaheena ka soo horjeedana danaheedaan ka soo horjeesanayna maba shakina nooga ma jiro dowladda Ethiopia mar kale waxaan leenahay darisaan nahay ismaanaan dooran idinkuna nama dooran annagana idama dooran darisaan nahay xuduudda ugu dheer ee iyagu ay leeyihiin annaguna aan leenahay xaq dhowridaan isku leenahay aan is xaq dhowrno boogihii shalay ee bogsaday yaan dib loo xoqin oo laga dhiijinin aan leenahay intaas wixii ka sokeeyo wax aan kaloon gaar ah oo aan ka rabno ama aan ka qabnaahi ma jirto